hadda maanta dee bajaajadii quftii naga bedeshay waxaan ka oran lahaa bulshada boorama gaar ahaan aan ku xidhnaato shirkadda bedelo bajaajyadii hore ee ka yara duugoobay kuwa cusubna aanu siino kuwii horena aanu ka xarayno abuurtii ka gabowday ay ku shaqaynayeen in boqol kale la siiyo oo bilaasha oo dhiirigelina arrintaasi arrin mucjiso oo la yaab leh weeyaan shirkadda bajaajlayaasha ee Model Bajaaj ee magaalada Boorama ayaa saaka waxay 100 xabo oo bajaaj guddoonsiisay macaamiisheedii hore ee watay bajaajyadii baaliyoobay ama duugoobay waxaana kala soo qayb galay munaasabadani taliyaha qaybta gobolka Awdal maayirka xigeenka degmada Boorama iyo mas'uuliyiin kale sidoo kale waxa barnaamijkani ag socday qaabkii deynta oo ay ugu tala galeen 500 ilaa iyo 1000 inuu qofku ku amaahan karo maadaama ay bajaajtu tahay 2600 dollar waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda iyagoo faahfaahin kooban ka bixiyay waxay hadaladoodu u dhignaayeen sida haddaan nahay shirkaddii Modern Motors inaanu sameynay qorshe cusub oo ku aadan in wacyigelin dadka ama dhisko loo sameeyo in loo sameeyo ummadda tabarta aan haynin baabuurtii bajaajyada ka duqoobay in loo bedelo oo kuwa cusub lagu bedelo ilaa 100 xabo inaan bedelayno oo dadkii aan tabarta haynin in loo sameeyo ayaanu soo ummaddu sheegaynaa gobolka Awdal taasaan wacyigelintaasaan wadnaa marka intaasaanu idin sheegaynaa inta kale soo hadhana 100 xabo in loo sameeyo bedel inta kalena qiimo jaban laga qaado xoolo waqti dheer la siiyo si dhalinyarada ay meel kale u aadin intaasaan u sheegayaa dhammaan gobolka Awdal aan maanta halka ku soo bandhigaynaa laba qorshe oo shirkaddan Modern Bajaaj ay hirgelinayso kuwaasoo kala ah qorshaha koobaad oo ah in aanu dhalinyaradii macaamiishada ahayd inta badan wax naga iibsanaysay in aanu u bedelo bajaajyadii hore ee ka yara duugoobay kuwa cusubna aanu siino kuwii horena aanu ka xarayno qorshaha labaad oo ah inta dadkii ka faa'iideysan waayay ama uu gaari weeyay boqol kale oo deyn waqti dheer la siinayo bilaa dulsaara wax yar intaanu ka sii qabanno deentuna ay bilaa dulsaar tahay waqtigan muddo fiican la siiyo uu iskaga bixin karay qof isagoo maxay ahayd ay ka shaahayn karaya labada qorshe ayaan maanta soo bandhigaynay wayna bilowdeen insha Allah maamulka iyo mas'uuliyiinta noo yimaada xagga dawladda iyo xagga maamulkana waanu soo dhaweynaynaa dadweynaha waxaan rajaynayaa insha Allah inay ka faa'iideysan doonaan iyagoo mahadsan maadaama anaga lafteeda aan in badan de shirkad meesha degan wax ka iibsanaysay tahay waxaanu go'aansanay inaanu dadkii dib wax ugu celin waanu soo dhaweynaynaa insha Allah macaamiisheeda waana ku soo dhaweynayaa insha Allah inta kadib hadalka waxa ka daba qaatay taliyaha qaybta gobolka Awdal iyo sidoo kale maayirka xigeenka degmada Boorama iyagoona shirkadani u mahadnaqay isla markaana ugu baaqay shirkadaha ka jira magaalada Boorama inay arintani oo kale sameeyaan in dadkii xidhiidhka la lahaa ee ay ka ganacsanayeen ay ka iibinayeen baabuurta yaryar waqti dheer ay markay xisaabtameen garteen in dadkii wax lagu celiyo oo 100 qof oo boqolkii qof ee u horeeyay oo mutaystay in baabuurtii ka gabowday ay ku shaqaynayeen abaalmarin loo siiyo in 100 kale la siiyo oo bilaasha oo dhiirigelina arrintaasi arrin mucjiso oo la yaab leh weeyaan ganacsatada kale ee noocyada kala duwanna waxaan oran lahaa kuwan lahaa ma ka codsan lahaa inay ku daydaanoo fikirka wanaagsan sida shirkadaas u fikirtay si labada u fikiraan oo ummadooda ay wax ku celiyaan iyagana intaasaan magaranaysaa haddii la yiraahdo kullay kula talin lahaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin gaadiidka intaa leeg ee ay yiraahdeen abaalmarin baan u siinaynaa dadkii xiriirka nala lahaan jiray baabuurtoodii hore walan jireen ka gaboobanayaan naga iibsadeen ayaan baabuur bilaash ugu bedelaynaa wax la yaab leh weeye Allah niga abaalmariyo waan iyaga leeyahay kuwa kale ee sidoo kale ani u soo galin ana ka faa'iideysan fursadaas ay soo gaarinna baabuur boqolkiiba 70 qiimahoodii laga jabiyay oo aanan wax dulsaar la dul dhigayn oo 10 sano in ka badan laga sugayaan iyagana hawsha ayaan maartay ku dhiirigelinaynaa shirkadda garatay wax la yaab leh weeye waa idin ducaynaa Allah xoolaha ni barakeeyo
إلهي أمدنا هسكوكين سخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. أدي أدبان رنتي وقام هذا عليا كان بيني قوين مودرن موتورس sidoo kale waxaan isagana ka salaamayaa taliyaha qaybta ee gobolka ganacsatayaasha waaweyn ee shirkadda ee macaamiisha halkan joogta ee kala duwan ee kambaniga ku xidhan iyo maanta munaasabadda aan u joogno oo ah inay 100 bajaaja oo cusub ay guddoonsiinayaan dadkii ay ka duugoobeen bajaajadii ay ku shaqaysanayeen ee kambanigani u soo dejinayay runtii waa wax weyn weeyi oo wax qiimo badan weeyi in kambani ka shaqaynaya ganacsi oo arinta inta leeg maalgelinta inta leeg maanta sida waxa weeyaan u soo bandhigay degmada Boorama anagu runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu yani waxa weeyaan leenahay kambaniyada kale ee gobolka jooga ee degmada jooga inay ku daydaan baan horta إلهي سبحانه وتعالى ودينا يجنا أن نقارسين يعني هلابور جناسيو هذه أدرون توفي عن ما دام ويرتهاي مركز جناسية يا رماه كشراء نقطين كمبني ومع ميشي سي وحكي جذنا أما وحكي بسنة ومشروع عيد بيجوسوا عليين تعلق ولي بدي يجا علايس كاي كتهاي يوحويان dhaqaalaha inta la dib ugu maalgeliyaan runtii waa karti iyo awood iyo waxa weeye garashay dadka kala dheer yihiin waxa weeye waa company runtii aanu dadka kale annagu ka xigsan doona hadii ilaahay ka degmaahan maadaama lacagta inta leeg oo halkii bajaaj maanta ay taagan tahay $2600 in mataqaana 100 bajaaj marka lagu dhufto $260,000 weey dhaqaalaha inta leeg in lagu maalgeliyo oo dadkii waxa weeyaan ka ganacsanay dib loogu celiyay waa wax weyn weey oo waxaan idin ognahay weey oo waxa degmada Boorama iyo dhalinyartaad maanta iyo waxa weeyaan qoysaska bajaajtii hore ama mooto bajaajtii hore ay ka duugowday ee maalin walba culayska iyo shaqo la'aanta iyo maalin walba ay fadhida ee geerisha ka bixilaaday aad mid cusub ugu bedelaysaan runtii waa mid bulshada degmada Boorama idin ogtahay annagu kamaamul ahaan iyo ka degmo ahaan aan runtii ku faraxsanahay oo idinku ognahay runtii waxaad nooga duwantihiin wax degmo kambani kasta oo ummadiisa sida wax ugu celiya anaga iyad nooga duwantihiin kambaniyada kalena waxaan leenahay in ummadiina ka ganacsanaysaan aad wax ku celisaan oo waxa weeye maadaama maanta Somaliland ay qaadatay in ganacsigu xor yahay oo aanay ganacsigu dawladda iyo cid gacanta kula loo waxa weeye aanu ahayn wax loo maamulayo oo qofku sidiisa u maamulanayo inuu dadkiisa marka uu si wanaagsan uga ganacsado inuu dadkiisa wax ku celiyo baan iyagana ku boorinaynaa aad iyo aad runtii waa fikir aad iyo aad u wanaagsan waa fikir qiimo badan waxa kale oo idinka mahad celinaya oo degmada reer Boorama iyo dhalinyarta iyo dadka ka ganacsada mooto bajaajta ee ku shaqeysta ee qotalyoomka ka soo saarta aan ku boorinaynaa inay kambanigan Modern Motors ay la socdaan oo ay ku xidhnaadaan sababtoo ah waa kambani mustaqbalkana ku daryeelaya oo waxa weeyaan haday ka dugowdo ka bedelaya oo maanta waaynu arkayno berito aynu arki doono runtii say ballan qaadeen waxa weeyaan mas'uuliyadda kambaniguna ay sidaas waxa weeyaan ka dhawaajiyeen in 100 kalena ay waxa weeyaan deyn fudud oo muddo soconaysa oo qofka aan culays ku ahayn inay bixinayaan beelka ka cadeeyeen runtii waanan uga mahad celinaynaa inay fududeeyeen ganacsiga ay ka ganacsanayeen iyo bulshada dhexdoodu inuu aad u fududaaday ayaanu dareemaynaa markaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waanu idin ognahay ka degmo ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka dad ahaanba degmada Boorama way idin ogtahay waana idinku xidhnaanaysaa dadka reer Boorama ee mootada ku shaqeysta waxaan leenahay degmada halaga waxa weeye laga warhayo Modern Motors waxa weeye waa ka warhayaha bulshada idinkuna ka warhaya intaas uma idinku soo koobina assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh bankii ugu horeeyay waxaan ku wareejinayaa maayir ku xigeenka degmada Boorama iyo taliyaha qaybta say ugu wareejiyaan iyaguna 10kii ugu horeeyay aanu siinayn ku wareejin doonaa imika 10kii qof ee ugu horeeyay taliya ku wareeji waxaan ku wareejinaynaa 100kii qof ee mutaystay in loo bedelo bajaajkoodii 10kii ugu horeeyay
أنا مقعد محمد دين حسين ومتيستي شركة ومهند وندعي إن حوالي لها وبركة. السلام عليكم. waxaan ku wareejin doonaa qofkii labaad qofkii labaad ayaanu ku wareejin doonaa runtii waan uga mahad celinaynaa shirkadda waxaanu ku leenahay inaad shirkaddaasi ku xidhnaato oo ilaahay u barakeeyo adigana runtii kaalin weyn bay kula soo qabteen guddoon si fiican bay ugu bedeleen 100 ayaan diiwaangelinaynaa bay yidhahdeen 100 ayaan siinaynaa maasha allah ilaahay barakeeyo shirkaddaana aad iyo aad baan ula shaqaynaynaa maasha allah ilaahay marka labaadna shirkadda maanta dee bajaajadii quftii naga bedeshay waxaan ka oran lahaa bulshada boorama gaar ahaan ha ku xidhnaato shirkadda laga amrto ina duceeyo shirkadda warbaahinta Cishqi TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal